kusoo dhawaada muuqaal cusub. Maanta waxaan qaadan doonaa business card design inagoo isticmaalayna Adobe Illustrator. Sida kaaga muuqata shaashada waxaan samayn doonaa business card halkan kaaga muuqda ayaan samayn doonaa. Magacaygu waa Jiftaax Maxamed Cabdi, channelka aad daawanayso Sulub Graphics. Fadlan haddii aad channelka cusub tahay subscribe saan, la wadaag asxaabtaada, siina share garee. haddii aan casharka iska bilaabano, marka hore waxaan u baahanay horta in isla fahanno waxaan doonaynaa inaan qabano maanta. waxa weeyaan business card kan ayaan samaynayna. marka waxaa laga yaabaa ardayda qaar inaan wali muuqanin design muxuu ahay qurux badan ama design ku inuu sidan aan ka qurux badan la soo diyaarinahay. laakiin anigu mar walba waxaan isku dayayaa inaan tool cusub ku faa'iideeyo. muhiimadda aan anigu casharada u duubayaa ma aha inaan design cusub iga faa'iido ama design qurux badan aad muxuu ahay meesha ka aragto aad iska daawato. macna ku samayn mayso inaan design soo qurxiyo aan soo duubo aad daawato. waxaan doonayaa maalin casharka markaad daawato ugu yaraan inaad hal tool oo cusub aad ka faa'iido oo wax ku qabta adiga. aniga design qurux badan haddii adiga daawato waxba ay tirmaan adiga wax ku qaban maayo. anigu waa ku soo diyaarin karaa design qurux badan, mar walba soo duubi karaa, laakiin mar walba waxaan u baahanahay wax aad adigu hadhow wax qurux badan ku samaysato inaad iga faa'iido oo muxuu ahay tool cusub aad mar walba iga faa'iido. marka haddii aan casharka iska bilaabano, marka hore waxaan tegaynaa file, kadib new baan tegaynaa. new markaan tagno halkan waxaan gashanayaa cabirka 3.5 inches baan waxaan gashanayaa xagga widthka, 2 inches na waxaan gashanayaa xagga muxuu ahay heightka. markaan labadaa geliyo waa standard size-ka ama size-ka caalamiga ah ee business card-ka. sizes kala duwan oo way jiraan business card ah. marka kan baa ka caalamiga ah, kan baan markaa isticmaalaynaa inagu. halkan waxaan ku qoranayaa business card ayaan ku qoranayaa. halka business card ayaan ku qoranayaa business card design. markaan business card design halka ku qoro, halkan waxaad arkaysaa inay labadaas isku jiraan. haddaba halkaas aynu kusoo korodhay maanta oo artboardska. maanta waxaan isticmaalaynaa 2 artboards ayaan wax ku sameynaynaa. labada artboardna waxay yihiin, midna waxaan ku sameynaynaa front face-ka, midna waxaan ku sameynaynaa back face-ka, oo dhinacna waa xaggii dambe, dhinacna waa xaggii hore. marka laba artboard baad ka dhiganaysaa. marka laba artboard ka dhigato, haddana waxaad tegaysaa xagga hoose oo RGB waa inuu kuu doornaadaa si muxuu ahay colorku si qurux badan ay kuugu muuqato. xaggan muxuu ahay high quality-gana waxaan ka dhigay 300 baan ka dhigtay, 300 baa ka dhiganaysaa. marka kadib waxaad leedahay create markaad tiraahdo waa in size kugu soo baxa. markaas kugu soo baxo kan oo kale aan doonaynaa inaan sameyno. haddii aad arkayso laba artboard, kana waa front face-kii, kana waa back face-kii. marka kan haddii uu front face-kii yahay, kana uu back face-kii yahay, waa inaad labadiiba mar wada samayn kartaa. Adobe Photoshop waxay noqonaysaa inaad laba document soo kala furato oo aad marna front aad samayso, ka markaad save garayso haddana aad mid kale aad design cusub furto oo aad document cusub soo samayso haddana aad back-kii samayso. laakiin Adobe Illustrator waxay kaga duwan tahay in muxuu ahay aad front face-ka iyo back face-ka isku meel ku samayn karto adigoo laba artboard soo furanay. marka labadiiba halkan baan ku sameynaynaa, ila soco insha Allah taala. marka kaygii saxda baan ku noqonayaa. waxaan sameynaynaa rectangular soo qaato, kadib waxaan sameynayaa halkaas ayaan sidaa ugu kala barayaa. saasaan leeyahay, saasaan ugu xidhay. markaan sidaa ugu xidho, waxaan sameynayaa inaan stroke xaga kala rogo, stroke aan iska saaro cad. markaan intaa iska saaro, waxaan sameynayaa inaan soo dhaweysto. sidaasaan soo dhaweysanayaa. markaan sidaa soo dhaweysto, waxaan sameynayaa inaan edges-ka si fiican u wada leekeysiiyo, haddii kale hadhow ka fool xumaanaysa. sidaa markaa u wada leekeysiisto, haddaba waxaan doonayaa muxuu ahaayey color-kii aan doonayay inaan ka dhigto ayaan sameynaya. saasaan isugu durkinayaa. kadib waxaan sameynayaa sidaa idhaahdo aan color-ka bedelo. haddii aan halkan color-rada ka soo qaato, marka hore waxaad samayn kartaa, anigu halkan imika design-kan anigaa sameeyey, waxaan u isticmaalayaa resource ahaan oo in imika aan soo dejiyo, aan social media ay ku soo dejiyo macnaheema sameynayso. marka laba waxaad saa u samaysanaysaa laba rectangle, kadib waxaad samaynaysaa labada color ee doonaysa inaad ku isticmaasho ayaad muxuu ahaayey ku soo shubanaysaa. kan baan ku shubanayaa, kan kalena waxaan ku shubanayaa kan kale. labada markaan samaysto, waxaan sameynayaa labada ma qaadanaya. xaggan baan tegayaa, halkan baan dhiganaya. halkan markaan dhigto, kan baan dooranayaa, kan baan ka dhiganayaa kan. kadib waxaan sameynayaa kan lock iska idhaahdo. laba jeer baad log gareyn kartaa inaad layers tagto, kadib aad halkaas soo furto oo aad samayso inaad halkaa ka log garayso. waa ka ay select garaysan haddii aad arkayso. halkan lafteeda magac baad ka bedeli kartaa. halka rectangle baad ku qori kartaa, rectangle, ama waxaad ku qortaa back color baad ku qori kartaa. back color intaad sidaa ugu qorato ayaad saa leedahay. halkaa magacii kuugu qoran taa waad samayn kartaa oo magac baad ku qoran kartaa. waxaa kaloo samayn kartaa isagoo magaciisii kuule ayaa halkaasaad ka arkaysaa inuu kuu select garaysan kale. waxaad samaynaysaa halkaasaad imaanaysaa, lock baad leedahay uu kuu loggaraysan. ama waxaad samayn kartaa waxaasoo dhan inaad iska dayso oo aad kan saa u select garayso. markuu saa kugu select garaysan yahay inaad object tagto
kadib log tagto selection lock selection tiraahdo ama waxaad samayn kartaa intaad waxaasoo dhan iska dayso haddii qof aad tahay keywordska ama muxuu ahaayey keywordska yararku muxuu xarifku waxaad samayn kartaa inaad saa u select garayso control iyo 2 aad taabato wii loo garaysan yahay marka saddexda habbood loo garaynaysaa inaad layerska ka soo loo garayso inaad object ka soo loo garayso iyo inaad control iyo 2 isticmaasho oo keyword aad kadib ku loo garayso markaad alxaasi saa u loo garayso waxaad samaynaysaa inaad halkan tagto haddana aad circle soo qaadato circle saa markaad tiraahdo ayaa waxaan samaynayaa inaan iyada haddana doorto control iyo c aan taabto haddana control f aan taabto haddaba maxay soo kordhinaysaa control c iyo control f haddii aan alta qabtan saa u yarweyneeyo waxay ii soo kordhinaysaa waxa weeyaan in muxuu ahaay ay ii kala koobiyeyso seerkashaydi haddii aad halkaa arkaysa layeriska ayaan ku jiraayay oon ka hoos mariyo oo taa seerkashaydi hore marka intaas ii soo kordhinaya haddii aad control aad ka walaacday control c control f waxaad samayn kartaa inaad doorato aad tagto object kadib aad tagto halkan aad tagto edit baan jeeda aad tagto kadib aad copy tagto haddana aad edit ku noqoto aad tagto best in front aad tagto taa control iyo f tan waa control c tan waa control f marka control f markaan doorto waxaan samaynayaa inaan shift iyo alt isla qabto in yar weyneeyo in yar markaan saa u yar weyneeyo waxaan samaynayaa inaan xagga hoose mariyo ta kale ka hooseysiiyo kadib aan sameeyo inaan colorkeeda madow ka dhigo okay waa leeyahay markaan sidaa madow uga dhigo waxaan samaynayaa haddaba inaan iyada doorto aan tago effect kadib aan stylize tago stylize markaan tago kadib aan tago feather markaan tago haddii aad arkayso wuxuu ii samaynayaa inuu feather igu sameeyo ama uu shadow oo kale iga dhigo haddii aan tan kale ka kor qaado oo taa aad arkaysaa marka waxaan samaynayaa inaan tan kor dhigo haddaan sameeyo aan tan haddana saa in yar saa u yareeyo si featherki si fiican igu muuqdo ama waxaan samaynayaa inaan horta colorkeeda caddaan ka dhigto markaan caddaan ka dhigto aan labadooda isku select gareeyo align tago kadib aan center idhaahdo haddana aan tago vertical align center idhaahdo aan haddaan doono taa feather kale aan in yar saa u yarweyneeyo shift intaan qabto aan yar saa u yarweyneeyo si featherki si fiican ugu muuqdo kadib waxaan samaynayaa inaan select garaysto aan soo qaado halkan dhigo aan sidaa u dhigo saa markaan u dhigo kadib haddana aan alta qabto aan kala koobiyeysto aan halkaa dhigo haddana aan alta qabto aan halkaa dhigo markaan intaas sameeyo waxay hadhay haddaba inaan contactiskii keensado meesha iconadii aan keensado xaggan inaan u noqdo oo aniga kuu sheegay kan waxaan u isticmaalaya resource ahaan kadib waxaan samaynayaa inaan iconiskii soo qaato markaas saasaan usoo wada qaadanayaa kadib waxaan samaynayaa business card ka gacsoominaya aan ka bandhiganaya kadib waxaan samaynayaa inaan sidaa idhaahdo aan dhexda saa wada dhigo aniga isku dayay inaan dhexda ku beego haddii aad aragto inaan dhexda kugu beegmi waxaad samaynaysaa inaad seerka shacad select garayso kadib aad iconka select garayso oo aad halkan tagto muxuu ahaayey horizontally align center aad tiraahdo haddana aad tagto vertically align center aad tiraahdo haddana inaad kan doorato kadib haddana aad seerka shaacad doorato aad tagto horizontally align center haddana vertically align center aad tiraahdo markaa dhexda kuu geynaya haddana kan inaan doorto dhibicdaa yarna aan doorto kadib aan tago aan halkaa ku dhufto seerka shaacad kadib aan tago horizontally align center xaggana aan ku dhufto vertically align center aan dhibicdaa yar baa dhexda kaa imanaysa markaa dhibicdaa yar baad baahantay inaad soo yar celiso aad halkaa geyso markaad intaas samayso waxba bay nooma hadhin iminka designkii waxa kaliya noo hadhay waxa weeye inaan qoraalada soo qaadano marka waxba isku dhibi mayno inaan iminka qoraal kale videogun bay kugu dheeraynaysaa videoga hadduu dheeraadana wax micnaa samayn maayo qofku yaro karaasanaya marka waxaan samaynaya inaan qoraalkiis ka soo qaato qoraal qoritaankiisu waxaan filayaa inaanay cidna ku adkayn in qoraal la qoraa cidna kuma adkaan filayaa marka qoraalkii baan halkan dhiganaya qoraalkii markaan halkan dhigto waxaan samaynayaa click baa leeyahay imka qaybtaasi way dhammaystiran tahay waxaan samaynayaa qofka loogadiisa waad soo qaadaysaa saanaan usoo qaadanayaa halkan baan keensanayaa halkan baan dhiganayaa loogadiina markaan halkaa dhigto waa design aad iyo aad u fudud marka muxuu ahaay dusha laga eegana qurux badan markaan halkaa keeno loogadaydii aan halkaa soo dhigto waxaan samaynayaa inaan sameeyo lead yar aan halkaa dhigto inaan cancel horta iska saar inaan soo qaato lineka kadib aan halkaas click ku idhaahdo aan saa u jiido anoo shiftina xijinaya kadib waxaan samaynayaa inaan halkan color picker ka doorto aan taa ka dhigto xagga u rogo stroga kadib aan stroga saa u yar ballaariyo markaan sidaa u yar ballaariyo oo weliba in yar hoos yar celiyo ilaa 7 aan ka dhigo ilaa 7 markaan ka dhigo waxaan samaynayaa inaan select gareeyo kadib aan halkan tago properties aan imaado kadib aan halkaa tago opacityga aan 54 ka dhigto markaan intaas sameeyo haddana waxaan samaynayaa inaan xaggan ku noqdo aan soo qaato cabdifitaax maxamuud ama
magacii qofka iyo title-kiisa hoos yaala ayaan soo qaadanayaa. kadib waxaan sameynayaa inaan halkan keeno qaybtan kale aan saa hoos dhigo aan halkan dhigo. marka intaas sameeyo wuu dhameystiran yahay design-kii qaybtii front page-ka ahayd. saasaan yar durkinayaa. kadib waxaan sameynayaa inaan hoos soo dhigo taa kale lafteeda aan hoos soo yarooda dhigo aan halkaa keeno. koonayaashana kasoo durki waayo hadhow marka la jarayo business card-ka waxaa la doonayaa in koonayaashaas oo kale ay rounded noqdaan. hadhow halkan waxaa la doonayaa in hadhow sidaa rounded yar noqoto marka hadhow lagu jarayo trimarka. marka waxay noqonaysaa haddii aad koonayaasha iskaga dhaweyso in ay kaa yar gaadho trimarka. marka waxaad sameynaysaa inaad mar walba koonayaasha kasoo yar durkursato ayaad sameynaysaa. kadib iminka frontka saasuu inoogu dhameystiran yahay. waxaad sameynaysaa hand toolkaas isticmaalaysaa saasa isaga durkinaysaa. haddii doonto hand toolka si kale aad u isticmaali kartaa inaad adoo halkaagaa jooga inaad spaceta dheer aad taabato ee computerka iyadoo hand toolkii kugu bedelaysa. haddii aad ka qaado waa selectionkii, haddii aad qabatana hand toolkii kugu bedelaysa. marka spaceka aad taabanaysaa kadib saas soo durkisanaysaa. marka sidaa soo durkisato waxaan sameynayaa horta inaan xagga hoose rectangular dheer dhigto. rectangular dheer markaan halkaa dhigto kadib waxaan sameynayaa inaan color rogo aan haddana muxuu ahaay aan soo yar dhaweysto. mar walba la iska soo dhaweystaa aad saa yar durkisato kadib aan saa soo durkiyo. kadib aan haddana koonahan kala tago haddii ay wax dheer yihiin waxba ma dheera aan selectionkay ku noqdan yar baa ka dhiman halkan aan saa ugu dhammaystiro. kadib aan hoos yar dejiyo. mar walba waxaa u baahan tahay documentiga marka wax sameynayso inaad soo dhaweysato si wax walba sidii saxda ahayd aad ugu dhigto oo aad si fiican u adeegto oo aad waqti fara badan geliso. dib baan isaga yar durkinayaa. halkan baan dib baan isaga yar durkinayaa si documentiga igu wada muuqdo. aan daaqada ayr iska celiyo. kadib aan sidaas soo idhaahdo. markaan sidaas soo idhaahdo kadib waxaan sameynayaa inaan haddana line-kayga doorto aan halkaa line sidaas soo idhaahdo. iska ilaali inaad click tidhaahdo adoo shift hayo jiid saa u dhig. kadib waxaad sameysaa inaad color-kanba qaadato kadib aad stroke kordhiso. kadib waxaan sameynayaa inaan saa isaga yar durkiyo aan sameeyo fiilkaasaan iska saarayaa. fiilkaa markaan iska saaro waxaan sameynayaa waxa ii hadhay inaan xaggan loogadii soo dhigto. waxba isdhibi maayo loogadan aan soo qaadanayaa. tan baan koobiyeynayaa altaan qabanayaa altaan xijinayaan koobiyeysanaya halkan baan keensanaya. qaabkaas aad koobiyeysanaysaa. qaab fara badan oo kalena oo loo koobiyin karaa. halkan baan horta iyada dhigayaa. line-kaas marka waxaan doonaya inaan ku beego halkaa loogada geeskeeda aan soo koobiyeynayaa line-ka laftiisa intaan select gareeyo. saasaan usoo koobiyeynayaa kadib halkaasaan geeskaasaan keenaya. marka waxaan sameynayaa inaan kana select gareeyo kadib aan align tago aan vertically align idhaahdo dhexdii wada geenaya labadoodaba. kadib aan loogadaydii select gareysto aan saa u yara durkiyo. aan sidaa markaan u yara durkiyo waxaan sameynaya kan select gareeyo aan halkaa tago direct selection toolka kadib aan kan doorto aan saa u yara durkiyo. intaasay kaga fiican tahay. anchor point-ka markaad doorato waa durkin kartaa. haddana kan kale aan dooranayaa kadib waxaan sameynayaa inaan saa u soo yar durkiyo. intaasaan ku daynayaa. kadib waxaan sameynayaa halkan baan haddaba doonaya inaan qoraal dhigto. kan baan dooranayaa altaan qabanayaa halkan baan keenaya ii kala koobiyismi. kadib halkan waxaan ku qoranayaa aqoon tayo leh. aqoon tayo leh markaan ku qorto waxaan sameynayaa inaan halkaa aqoon tayo leh oo taas. kadib waxaan sameynayaa inaan sidaa weyneeyo. saa markaan weyneeyo inaan halkan dhigto aan saana u yara durkiyo. marka haddii aad aragto qoraalkoo saasoo kale kaa noqday waxa weeyaan shape-ka ayuu xagga dambe ka marsan yahay. kadib waxaad sameynaysaa shape-ka inaad doorato right click tidhaahdo arrange tagto kadib aad tidhaahdo send back xagga dambe buu geynaya. halkaa qoraalkii markay noo soo muuqday halkaasaan keensanayaa double click baan leeyahay ayr ma caddaan ka dhiganayaa check baan leeyahay. marka waxaan sameynayaa inaan dib isaga durkiyo. haddii aan ku tuso aan saa soo durkiyo oon weliba imika labada line aan ka dhigto orange aan ka dhigto. intaan orange ka dhigto aan xaggan usoo rogo aan check idhaahdo oo kaa imika design-kaygii waa kii aan ku idhi waan sameynaynaa oo waa kan. haddii aan xaggan tagno waxba kuma kala duwana. haddii aan dib u durkiyo kan laftiisa markaan sidaa dib ugu durkiyo haddii aan xaggaa dhexda saa u dhigo oo aan kana saa u tago kana saan u tago waa isla halkiin. haddii aan kan saa usoo jiido oo aan halkan keeno si aad si fiican uga aragto isbarbardhigooda ama ay si fiican kuugu muuqato waxaa kalaad sameyn kartaa inaad kan daaqada saa yar durkiso kadib aad sameyso inaad halkaas saa uga soo yareyso. halkaas saasaad mouse-ka la raadinaysaa kadib saasaad usoo yareynaysaa. saasaan leeyahay. kadib waxaan sameynayaa inaan saa u yara durkiyo
kanaan xagga sare geeyo kidaan saa u soo dirfiyo aan saa idhaahdo marka imika oo ka isla eg haddaba labada design waa isku mid waa sidii aan ku yidhi waan u samaynaynaa qaabkaas u samaynaysaa insha Allah taala waxaan doonayaa haddaba inaan ku tuso imika laba artboard bi hadhow ardayda waxaan hubaa oo ku adkaa doonta sida labada artboard aad u kala save gareynayso waayo haddaad imika labada artboard mar wada save gareyso hadhow ma samayn kartid isku rogood marka waxaad samaynaysaa inaad sidoodii ku celiyo kan aan halkiisii ku celiyo ayar intaad saa soo qabto adaayar halkaas ugu celiso oo ka si halkiisii noo jooga kadib waxaan samaynayaa haddaba save gareyntii waxaan samaynayaa harta labada kalarna meesha ka saaro markaan labada meesha ka saaro waxaan samaynayaa inaan file tago kadib haddii aan image ahaan ku save gareynayo export aan tago export markaan tago export as aan tago kadib halka business card design ma igu qorantay waxaad samaynaysaa halkan baad dooranaysaa use artboards markaad doorato range ay ku doorantay halka waxaad ka dhigaysaa one export baad leedahay waka artboardka koowaad kaliya saaraya okay baan leeyahay save gareynayaa haddana waxaan samaynayaa inaan tago file kadib aan export tago aan save as export as idhaahdo haddana aan use artboards doorto aan artboard 2 doorto kadib aan export idhaahdo haddii aad arkayso haddana waxa la saaray artboard 2 kadib okay baan leeyahay labadii artboard baa la save gariyay qaabkaas aad u samaynaysaa cashirkan maanta halkaas ku joogaya fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar dhowdaga asxaabtaada siina share garay waxaad isku daydaa maanta waxaan doonayaa inaan gaarsiino like ta videogan inaan gaarsiino ugu yaraan 500 qof inaan like saarno insha Allah taala aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.